الله الرحمن الرحيم كوسو dhawaada tababarka yar ee aadka u gaaban waa tababar aynu kaga sheekeynayno qalabkay soo saarto shirkadda Huawei oo ah routerada iyo switchada soo saarto oo runtii ah suuqa telecommunication marka imika la joogo qalabyada ugu badan ee la isticmaalo marka ayna waxaan door bidaynaa qaybta dhinaca ISP-ga ama internet service providerska routerada iyo switchada isticmaalaan marka tababarkeen magaciisa waxa la yiraahdaa basic training for Huawei switches and routers tababarkeen wuxuu ka koobnaan doonaa waqti aad u gaaban runtii waxaan isticmaali doonaa software-kay ugu tala gashay tababarada shirkadda Huawei oo loo yaqaano Enterprise Network Simulation Platform oo ah runtii software dhammaystiran oo wax fara badan ay ku jiraan dhammaan qalabyada ay soo saarto dhanba xagan ku ooli doona waxaan ugu tala gashay inay macaamiisheedu ay isticmaali karaan si aanay wax cusub ugu noqonin inta waxa dheer oo aan anigu ku diyaariyay material ka kooban laba qaybood qaybta hore waxa weeyaan qaybtan anigu ugu tala galay tababarka oo 22 page ah waa tababar runtii aad u qurux badan oo waqti badan geliyay oo ka kooban laababkii oo laababka waxaan door bidayaa laab wixii troubleshooting iyo waxyaabahaas oo dhan ay ku wada jiraan laab kasta waxaan ugu tala galay inuu ardaygu step by step u qaado talaabooyinka aan qaadayo si uu helo output-ka la rajeynayo inuu soo baxayso inta waxa dheer ardaygii si u sii baahan information saayida waxa uu la socdo sidoo kale folder-ka ugu jira tababarka ay ugu tala gashay shirkadda Huawei macaamiisheeda oo runtii isaguna tababar dhammaystiran okay inta waxa dheer adiga iyo software-kii baad halkan isku baranaysaan software-kan aan isticmaalayno waa kan sadabkiisii software-ku laba qaybood buu ka kooban yahay virtual box software loo yaqaano oo una la'aantii shaqaynaynin iyo NSP software-kan ugu tala galnay oo ah software-kan ayna halkan ku haysano marka qof kasta wuxuu isticmaali doonaa computerkiisa isagoo aan u baahnaanin haba yaraatee inuu qalabka Huawei physically u tago hadduu tababarkana dhamaysto waxaan hubaa inuu qalabka Huawei sideeda ugu shaqeynayo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.